xildhibaan daahir amiin jeesow oo kamid ah xildhibaanada dowladda federaalka Soomaaliya isla markaana ku sugan gudaha magaalada Beledweyne oo kamid ah guddiga u xil saartay dowladda federaalka Soomaaliya musiibada ka taagan gobolka Hiiraan ayaa kormeer waxa uu ka tagay isbitaalka weyn ee magaalada Beledweyne halkaas ay ku sugan yihiin bukaanno kala duwan. xildhibaan daahir amiin jeesow ayaa shir jaraa'id waxa uu ku dhaxqabtay biyaha dhexdooda kormeer ku sameeynay biyaha heerka ay marayaan iyo muxuu ahaa isbitaalka oo asagana dad bukaana ay go'doon ku ahaayeen runtii arintan arin cajiib waaye arin oo runtii naxatinteeda la waaye qof kasta oo arka anigu hadalku ma soo koobi karo xaafadaha afarta xaafadood waxaan weli la gelin oo in laga dhintay in la nool yahay aan la ogeyn oo biyahan meesha ugu badiyeen Buundweyn waaye isbitaalka dad bukaanaha ku jiro nafaqa darrada ay soo ridatay dad muxuu ahaa qaliin hooyooyin oo umuliyo qaliin ku umulay iyo muxuu ahaa ilmo oo nafaqa darro hayso dad muxuu ahaa waxyaabo si uun jiridooda ay tahay oo laga keenay dhul fog laga keenay ayaa joogo meel ay wax ugu galaan haba yaraatee malaha hadda waxaan aragnay laba meyd oo hooyo oo xaamilaheeda fooshi ku dhimatay oo iyadii canugeedu israaceen isbitaalka ay yaalaan qof kale oo tii rabbi isiga dhintay meesha uu yaalaa si lagu duug lahaa ayaa dhaqaatiir hataa iyo dadkii ahladaha ay ka murugsanaayeen dhibaatadu way badan tahay biyaha way soo kordheen xaafada aan laga barakacay insha Allah wax allaale wixii oo macluumaadka biyahan ku saabsan mar walba miidiyaha ayaan idin soo marinaa cidii telefoonka ay haysatana waa in la soo xiriirtaa waxaan ka codsanayaa dadkan waa dhibaataysan yihiin in loo soo kaalmeeyo waxay taagan tahay qayladaan waa wareeydi reer fanaaniintii oo reer Juqlaaw ay qaadeen reer Hiiraan waa nimankaas ay qaadeen ay lamid tahay maalintii Shaam oo qarxa oo ka dhacay tani waxa waaye waa saf mar biyo ah oo aan Hiiraan gobolka caasimadii muxuu ahaa magaaladii Beledweyne si saf mar ah biyo u galeen waa arkaysaa intay noo joogaan alxamdulillah intii ku bixayso ilaahay asugu talagalin dabcan waan ku bixi doontaa laakiin hadhiminaha noolaan ayaa dhibaato ah biyahan idin la tahay magaalada waa ku wada sameeyeen in la jeefan karo oo nin biyahan ku dhex jiro ashurdaay qof muxuu ahaa maalintii biyahan ay soo baxeen iyo intaan habeenkii waxaan arkay tooshash iska dawreegay iyo dad walaacsan baad arkaysaa ma arkaysid qof miir qabo oo si degan u saaxday ma arkaysid dhinaca kale xildhibaan daahir amiin jeesow ayaa dowladda federaalka Soomaaliya waxa uu sheegay in uu ku xisaabtami doono xilka ay u hayaan dadka shacabka aan ka soo jeedo dowladda federaalka anahay waan ku xisaabtamayaa xaquuqda dadkayga haddii aan liigu dayriyo waan u jeednaa maanta dhiiqaan dhaxtaaganahay biyaan dhaxtaaganahay haddii liigu dayriyo wallahi waa ku xisaabtamayaa sababtoo waxaan xildhibaan ku ahay waa dadkayga sidaas biyo ay u dhex yeelaan dowladda federaalka guddiga ay magacaawda 23 kan ku jira saanaan biyo u taaganahay ilaa iyo haddana wax iyaga ay leeyihiin oo aragnay malaha wax la qarinayo maalin walba waxaan qaybiyaa muxuu ahay on goobjoog u ahay hay'ad hebel waa inaan mar un dhagtayda ay ku dhacdaa dowladda federaalka wax qaybinaysa maxamed cabdi baadil Somali Cable TV magaalada Beledweyne